kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka kulanka wararka qodobada wararkeena xilligan waxa ay kala yihiin dawladda oo ciidamo amisom geynaysa magaalada Dhuusamareeb iyo kuwa ka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo maanta gaaray magaaladaasi Imaaraadka Carabta oo hub iyo saanad ciidan oo uusan ogeyn madaxweynaha Puntland ka dejisay magaalada Qardho Cumar Finish oo ku dhawaaqay hadalka careysiya madaxda dawladda danta ay dawladda Kenya ka leedahay Axmed Madoobe oo la ogaaday dawladda oo waji cusub u yeeshay khilaafka kala dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo xildhibaan fiqi oo si adag kaga hadlay go'aanka dawladda ee xayiraad ku saartay maamulka Jubbaland intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada wararka ugu doorka roon markana waxaad ku soo dhawaataan iyagiyo faahfaahsan warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa ogaatay maalmihii la soo dhaafay inuu khilaaf xoogan ka dhex jiray dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo dawladda Imaaraadka Carabta khilaafka oo markii hore salka ku haya arrimo la xiriira mashaariicyo labada dal isku fahmi waayeen ayaa imika sii xoogeystay kadib markii la ogaaday in garoon ku yaala magaalada Qardho ay ka soo dejisay dawladda Imaaraadka Carabta diyaarad siday saanad military taas oo aysan ka warheynin madaxda Puntland waxaa shaki weyn dhalisay qaabka qarsoodiga ah ee dawladda Imaaraadka Carabta ay saanad military ugula soo degeen garoon cusub oo aysan horay u isticmaali jirin iyadoo la wada og yahay in diyaaradaha dawladda Imaaraadka Carabta ay isticmaali jireen kaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso saraakiisha hay'adaha ammaanka ee Puntland gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Qardho oo ka war helay diyaaradda Imaaraadka Carabta ay leeyihiin ee ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Qardho ayaa amray in la xanibo agabka ciidan oo ay diyaaraduhu soo dejiyeen madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo markii horeba safarkiisa ku wajahnaa dalka Imaaraadka Carabta ayaa la gaarsiiyay warka la xiriira diyaaradda hubka sida ee ka soo degtay magaalada Qardho waxaana madaxweyne Dani amray saraakiisha hay'adaha ammaanka ee Puntland inaan la soo dejin saanada military oo ay diyaaraddu wado waxa muuqata qorshahan inuu yahay mid u gaar ah dawladda Imaaraadka Carabta oo aysan ka warqabin madaxda Puntland shaki weyn ayaa durba soo baxay kaas oo halka ay ku wajahan tahay saanada ciidan oo ay diyaaradda Imaaraadka Carabta ka soo dejisay magaalada Qardho iyadoo aan lagu soo wargelin madaxda Puntland habdhaqankan cusub ayaa sii xoojinaya tuhunka ay muddooyinkii dambe qabeen madaxda Puntland kaas oo ah in wada shaqeyn ay ka dhaxayso kooxaha ka dagaalama buuraha galgala iyo dawladda Imaaraadka Carabta saraakiil ciidan oo aan la hadalna ayaa waxay noo sheegeen inay aaminsan yihiin in saanadaasi military ee qarsoodiga loogu soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Qardho inay tahay mid loo waday kooxaha ka dagaalama buuraha galgala oo ay xiriir dhow la leeyihiin al-shabaab sidoo kale saraakiisha ayaa inoo xaqiijiyay inay baaris ku sameynayaan halka rasmiga ah ee loo waday saanadaasi military maalmo ka hor safarkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uga baxay Puntland ayaa si rasmi ah ugu wajahan magaalada Dubai isagoo transit ku sii noqday dalka Itoobiya lamana oga saameynta dhacdadan ay ku yeelan karto safarka madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo taliska guud ee Amisom ayaa maanta oo Jimcaha waxay isku raaceen in ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee Amisom la geeyo magaalada Dhuusamareeb oo ah xarunta rasmiga ah ee maamulka Galmudug talaabadan ayaa ka dambeysay kadib kulan ay magaalada Dhuusamareeb ku yeesheen taliyaha guud ee ciidamada Amisom ee gaaray magaalada Dhuusamareeb halkaas oo ay kula kulmeen wasiirka amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan Ahlus Sunna wal Jameeca waxaana la isku raacay in ciidamo Amisom la geeyo magaalada Dhuusamareeb wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sheegay in ciidamada Amisom la geenayo Dhuusamareeb ay noqon doonaan kuwa lagu xoojinayo ammaanka magaalada Dhuusamareeb si loo suurtageliyo doorasho xor oo xalaal ah Ducaale ayaa sheegay in ciidamada ay kaalin weyn ka qaadan doonaan horsocodka Galmudug si loo dhiso Galmudug mideysan iyo sidoo kale qabsoomida shirka dib u heshiisiinta beelaha dega Galmudug iyo guud ahaan doorashada la filayo inay ka dhaceyso magaaladaasi go'aankan ayaa imaanaya iyadoo Ahlus Sunna wal Jameeca ay marar badan ku celcelisay inaysan aqbali doonin in ciidamo Amisom la geeyo magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Aanadooda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo xalay si rasmi ah xilkiisa ula wareegay ayaa sameeyay ballanqaad farxad geliya shacabka caasimadda gudoomiye Cumar Finish ayaa sheegay inuu si degdeg u furi doono jidadka xiran ee magaalada Muqdisho isla markaana muhiimadda uu saarayo dhaqdhaqaaqa isku socodka dadka iyo gaadiidka
waxaan hortiina ka ballan qaadayaa in maamulkayga shaqadiisa ugu muhiimsan inay tahay ilaamaha ammaanka lagala shaqeeyo amniga caasimadda. waxaan ku dhawaaqayaa inaan si degdega u furi doono wadooyinka kala xidhan ee magaalada muqdisho, ayuu yidhi gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir. sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu ku shaqayn doono 6 tiir oo muhiim u ah horumarka caasimadda iyo shacabka ku dhaqan. waxaan u cadaynayaa bulshada muqdisho inaan uga shaqayn doono si daacadnimo ah oo hufan, diyaarna aan u ahay inaan idinkala shaqeeyo horumarinta gobolka banaadir, kobcinta dhaqaalaha, maalgashiga iyo bilicda caasimadda. waxayna arrintan qayb ka noqonaysaa 6 tiir ee aan hiigsanayo, ayuu mar kale yidhi gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir. gudoomiye Cumar Finish ayaa sidoo kale madaxda dowladda ka dalbaday in loo madax banaaneeyo amniga caasimadda iyo in lagu garabsiiyo sidii shacabka culeysyada jiro looga qaadi lahaa. ugu dambeyn waxa uu shacabka magaalada muqdisho ka dalbaday inay la shaqeeyaan maamulkiisa kuna garabsiiyaan xoojinta nabadgelyada. dhanka kale gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir aana hogaamiyaha xisbiga cadaaladda xasan maxamed xuseen mungaab ayaa markii ugu horeysay ka hadlay culeysyada heesta dadka muqdisho gaar ahaan jidadka xidhan. isagoo ka hadlayay munaasabadda xilwareejinta gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ayuu ku ammaanay madaxda dowladda sida marxaladan xasaasiga ah ay ugu soo magacaabeen Cumar Finish oo uu ku tilmaamay inuu yahay nin culus ayaa loo magacaabay gobolka banaadir. nin culus markii la magacaabo akhyaar badan way isu soo bixaysaa. xafladan looma kala harin, mucaaradka xitaa waa yimid. xukuumadda marxaladan xasaasiga ah markay Cumar Finish u soo magacaawday wax wanaagsan ayay sameysay, waana ugu mahadcelinaynaa, ayuu yidhi gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir. sidoo kale waxa uu sheegay in magaalada hadda ay ka jiraan culeysyo fara badan oo dhanka jidadka xidhan ah, islamarkaana shacabka meel walba laga xirtay. magaalada dhagax waa dhaaftay in lagu xiro, ganjeelo ayaa laamiyada lagu xiraa. annaga dhagax waan ka qaylin jirnay, hadda ganjeel ayaa lagu xidhay qeybo ka mid a caasimadda. shacabka meel ay maraan ayay la-yihiin. jidcadayaasha ilaa xaafadaha horay ayaa loogu xiray. baabuurta dekeda xamar ka soo baxda ee badeecadaha sida suuqa Bakaaraha iyo suuq Bacaad waxaa laga yaabaa 3 maalmood inay ku noqnoqdaan wadooyinka caasimadda, maalinka afraadna ay gaaraan suuqyada Bakaaraha iyo suuq Bacaad, ayuu mar kale yidhi gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir. sidoo kale waxa uu tilmaamay in shacabka gobolka banaadir ay yihiin canshuur bixiyaal dhibaatooyin fara badan haysta. gudoomiyaha gobolka banaadir isaga ayaa ah hogaamiyaha nabadgelyada gobolkan, laakiin waa inay madaxda qaranka ku dhiirigeliyaan in gudoomiyaha doorkaas nabadgelyada loo daayo oo loogu dambeeyo wasiirada ay qaataan siyaasadda guud ee amniga. magaaladan amnigeeda iyo kala dambeynteeda ma ahan in lagu dabaqo xeerar kala duwan, balse waxaa muhiim ah in lagu dabaqo xeerarkii dowladii hore ee Siyaad Barre, islamarkaana loo madax banaaneeyo amniga caasimadda duqa Muqdisho. ugu dambeyn mungaab ayaa sheegay in gudoomiyaha cusub uu yahay nin wax badan ka qaban karo xaaladaha cakiran ee heesta shacabka gobolka banaadir, waa haddii madaxda dowladda ay u madax banaaneeyaan siyaasadda guud ee gobolka banaadir. xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa jawaab ka bixiyay go'aanka ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ku amartay in diyaaradaha ka tegaya Muqdisho iyo kuwa ka soo baxaya magaalada Kismaayo inay soo maraan dhammaantood magaalada Muqdisho. xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ku ah dowladdan ayaa jawaab ka bixiyay go'aanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku amartay in diyaaradaha tegaya iyo kuwa ka soo baxaya Kismaayo inay soo maraan magaalada Muqdisho. siyaasadda waa lagu kala aragti duwanaan karaa, waana arrin ka dhaxaysa siyaasiyiinta, laakiin macquul ma ahan in dowladda Soomaaliya magaceeda lagu ciqaabo dad Soomaaliyeed, ayuu yidhi xildhibaan Fiqi. go-aanka madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya ee ka careysiiyay doorashadii Jubbaland ee looga awood roonaaday ee leh muuqaalka argoosiga ma ahan wax qabta shacabka Soomaaliyeed ee Jubbaland ku dhaqan iyo kuwa halkaasi u safraya. diyaaradaha Kismaayo tagaya ama ka imaanaya Muqdisho soo maraan ma ahan go'aan xilkasnimo iyo sidoo kale saldhig sharci leh, waana isla aqliyadii wadooyinka xamar lagu kala xiray iyo midda aan looga hadleen laguna cunaqabateynayo shabaabka canshuuraha ka qaadaya dekeda Muqdisho iyo ganacsiga dalka, ayuu yidhi xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. go-aanka villa Soomaaliya ka soo baxay waa mid dhibaato ku ah xuquuqda isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa dadka Soomaaliyeed, kamana soo bixi karaan dadkeenu culeys ka dhalan kara go-aankaasi, ayuu yidhi xildhibaan Axmed Macalin Fiqi.
hay-adihii dalka waxay noqdeen kuwo go-aano siyaasadeedsan lasoo dhexmarsiisto kana gudbinaya xeedaabka shaqeed ee loo igmaday. hay-adda duulista hawadu marnaba kama aysan hadlin diyaaraddii ciidamada Itoobiyaanka waday ee isku dayday inay ka degto Kismaayo toddobaadkii hore, laakiin go-aanada shacabka lagu dhibaateynayo waa ay la fududahay inay soo saarto. arrintanna waa arrin aad loogu xumaado, ayuu markale yidhi xildhibaan Fiqi. inkastoo aan aaminsanahay in go-aankani uusan ka hirgeli doonin Jubbaland, haddana guddiga wadooyinka, dekedaha, garoomada, tamarta iyo gaadiidka labada gole ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya waxaa looga fadhiyaa inay arrintan soo fargeliyaan, sidoo kalena ilaaliyaan sharciyada dalka ee lagu xadgudbayo iyo sidoo kale dhibaatada shacabka loo geysanayo, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. guud ahaan daawadayaal, halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen janalkan. daawada haddii aad ku cusub tahay janalka, waxaad saartaa subscribe, qaybta hoose ee janalka waxaad inoogu reebtaa aragtidaada.